lagu laro warkiisu yahay degdega dood wadaagga wacan xog waraysi lagu laro warkiisu yahay degdega waxaad ka heshaa radio Kismaayo allo inoo dhowr Kismaayo 24 waxaad ka heshaa radio Kismaayo allo inoo dhowr Kismaayo 24 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عن ونكسن أخيارتا ولي نقد جيساني سايد الكيمبا ميل ولي باجوكتان يسي والبوادين ومغليسان كوسو دوادا برنامج كديرة الراديو Kismaayo أو تضبات كيبعاو كلات كما قشان شبكة ورقة Kismaayo واتستو سوغد جيستان بات انترنت كا kismaayo24.com barnaamijka diiradda radio Kismaayo oo inuu alaaba dhageystayaal ku soo qaadano dhacdooyinka kala duwan ee siyaasadaha ka jira gudaha dalka Soomaaliya iyo waliba siyaasadaha kale ee saameynta ku leh bulshada Soomaalida ee ku dhaqan dalka dibadiisa ayaa waxaynu toddobaadkani hadduu bakaraale noqdo ku soo qaadan doonaa qodobo ay ka mid yihiin Somali Central State maamulka lagu magacaabo annaga ka hadalka aan ka hadlaynaa hukuma cusba maantay ilaa maalinkii la bilaabay hadda inta ka dhaxla waan ka hadalnay ilaa manahan maamulkaas oo aniga awood u dagaal ugu qaado gobolada dhexe oo Soomaaliya inuu leeyahay maamulka Ahlusunna wal Jamaaca oo sheegay inaysan aqoonsaneen maamul la yiraahdo Somali Central State oo isagu sheegay inuu ka dhisan yahay qayb ka mid ah gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya waraysi xiisa badan oo dhinacyo badan taabanaya oo toddobaadkan la yeelanay Sheekh Mahad Khaliif Rooblo oo kamid ah saraakiisha sarsare ee maamulka Ahlusunna wal Jamaaca ee degmada Caabudwaaq barnaamijka ayaad dhageystayaal kaga bogan doontaan sidoo kale dhageystayaal barnaamijka diiradda radio Kismaayo qodobada kale ee ku soo qaadan doona hadduu bakaraale noqdo waxaa ka mid noqonaya shirkan sagaca oo Saudi wali toorkii ilaa shay toorkii bishaan si guul ayuu ku dhamaaday waxa ka soo qayb galay ilaa 9 maamul ka soo qayb gashay ujeedada meesha loo Uganda waxay ahayd bal in dadka Soomaaliyeed oo ay istaabiyaan in ay iyagu hadli karaan iyadoo aan fargelisay isjirin iyo sidoo kale in gobolada dhexe bulshada ku nool sida u muddo lahaayeen in laga tashado halkuu ku dambeeyay kulankii ay soo qaban qaabisay maamul goboleedka Ximini Xeeb isagu ka soconaya degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya kaasi oo loogu magac daray mideynta maamul goboleedka ka dhisan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya waraysi arrimahaasi iyo arrimo kale oo fara badan ku saabsan oo inuu toddobaadkan la yeelanay Cismaan Maxamed Cali oo isagu ah la taliyaha madaxweynaha maamul goboleedka Ximini Xeeb barnaamijka diiradda radio Kismaayo ayaa dhageystayaal kaga bogan doontaan sidoo kale dhageystayaal barnaamijka diiradda toddobaadkani ee radio Kismaayo qodobada kale aynu ku soo qaadan doona hadduu baqadar waxaa ka mid noqonaya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ku-meel gaarka Soomaaliya oo toddobaadkani kulan ku yeeshay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho oo sababay in gacmaha iskula tagaan isla markaana qasaarooyin dhaawacya uu soo gaaray qaar ka mid ah xildhibaanadii halkaas iyagu ku shirayay
waraysi ku saabsan qaabkii u dhacay kulankaasi iyo weliba khasaarihii ka dhashay ooynu toddobaadkani la yeelanay xildhibaan cabdiraxmaan jimcaale isagu kulankaasi ka qayb galay barnaamijka diiradda redio kismaayo ayaad dhegaystayaal kaga bogan doontaan. sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka diiradda redio kismaayo toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa maanta oo aan shirka ku qabanay dowladda Puntland sharafta ummadda Soomaaliyeed intay jirtaa qof kasta inuu arko oo ku fakaro waa muhiim. haddii aanan maanta sharaftaasi aysan ummadda korin waxay noqonaysaa adinka oo midnimadii ummadda meel wada ay noqonaysaa. kulankii wadatashiga wejigiisii labaad oo ku soo gabagaboobay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland iyadoona wufuud kala duwan oo isugu jira dhinacyada Soomaalida iyo wufuud heer caalami ah ay kulankaasi ka qayb galeen. haddaba ahlu sunna wal jamaaca iyadoo kulankaasi wufuud ka socotay ee ka qayb galeen qaar ka mid ah saraakiisha ahlu sunnana ay shirkaasi gaashaanka u daruureen. sheekh maxamed maxamuud yuusuf oo loo yaqaan oo libaax oo isagu ah gudoomiyaha ahlu sunna wal jamaaca ee gobolada koonfur galbeed ee dalka Soomaaliya oo kulankaasi horkacay wufuud ahlu sunna uga qayb gashay khudbad qiimo badan oo halkaasi ka jeediyay iyo waraysi xiiso badan oo aynu la yeelanay barnaamijka ayaynu dhegaystayaal caawa idinkugu soo gudbin doonaa. sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka diiradda redio kismaayo toddobaadkan qodobada kale aynu idinkugu soo gudbin doonaa hadduu Bakar Ale noqdana waxaa ka mid noqonaya kulan looga hadlayay ammaanka guud ee gobolka Gedo ee koonfurta dalka Soomaaliya oo saraakiil ka tirsan dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya ay ku yeesheen degmada Doolo Itoobiya. barnaamijka ayaynu idinkugu soo gudbin doonaa warbixin arintaasi ku saabsan. sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka diiradda redio kismaayo toddobaadkan qodobada kale aynu idinkugu soo gudbin doonaa hadduu Bakar Ale noqdana waxaa ka mid noqonaya adigu nin sheeganaya xildhibaan ayaa wuxuu ku arursaday ciidan ayuu ku arursaday meel ciidankaasi marka iyo ciidanka al-sunna wal jamaaca oo ammaanka sugahaya ayaa meeshaas waxaa weeye maleesiyaankii xabada ku bilaabeen. halkaas marka waxaa ka dhacay iskoorimaad baa ka dhacay. iskoorimaadkaas marka wuxuu keenay khasaare ayuu keenay. taliska culamaa udiinka ahlu sunna wal jamaaca ee degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud oo ka warbixiyay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha degmadaasi ka u dhaxeeyay maamulka ahlu sunna wal jamaaca iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. waraysi aynu la yeelanay taliyaha ciidamada howlgallada ee maamulka ahlu sunna wal jamaaca ee gobolka Galgaduud Sheekh Dubad barnaamijka ayaad dhegaystayaal kaga bogan doontaan. sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka diiradda toddobaadkan ee redio kismaayo waxa iyana meesha ka marneen kaalimihii suugaanta kuwoodii ugu xiisaha badnaa. kaalimaha suugaanta ee toddobaadkan dhegaystayaal idiin soo xulnay waxaa ka mid noqonaya iyo sidoo kale waxaa sidoo kale dhegaystayaal kaalimaha suugaanta ee caawa barnaamijka diiradda redio kismaayo ka mid ah kaalimahaasi iyo kaalimo ka badan iyo wareysyadii ugu dambeeyay ee toddobaadkaniba dhegaystayaal waxaynu caawa ku soo qaadanaynaa barnaamijka diiradda toddobaadka ee redio kismaayo oo si toos ah idinkaga imaanaya xafiiska redio kismaayo ee magaalada Boosaaso iyadoona aad ka dhageysanaysaan barta internetka ee kismaayo24.com. dhegaystayaal barnaamijka diiradda redio kismaayo toddobaadkani waxaa idiin soo saaray isla markaana halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Cumar Saciid Cabdiraxmaan Lakimaan. dhanka farsamada inta barnaamijka uu soconayo waxaa ka qaabeynaya mahadi ka gaartay Maxamed Cabdi Maxamed. waa mar kale iyo barnaamijka diiradda redio kismaayo oo aad si toos ah uga maqlaysaan barta internetka ee kismaayo24.com.
waa hagaag dhageystayaal marka la habeen wanaagsan idilkiinba meel waliba joogtaan iyo si walba aad inoo maqlaysaan intaynu gudagalin waraysyada barnaamijka diiradda shabakada warbaahinta Kismaayo oo aad si toos ah nooga maqlaysaan barta internetka ee kismaayo24.com marka hore waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah kaalimaha suugaanta waana heestii love haygu oranin love waatahay dhageystayaal heestaas ay sida wada jirka ugu luqeynayeen Ikraan Caraale iyo Cabdi Holan waxay daafureed barnaamijka diiradda toddobaadka ee Radio Kismaayo aad si toos uga maqlaysaan barta internetka ee kismaayo24.com qodobka ugu horeeya ee barnaamijka diiradda ayaa waxa uu yahay toddobaadkan dhageystayaal maamulka culamaa diinka Ahlusunna wal Jamaaca ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya oo ka warbixiyay isgaarsiinta degmada Cabudwaaq oo muddo 2 maalmood ah hawada ka maqneed dagaalana halkaasi ku dhex maray xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo maamulka Ahlusunna wal Jamaaca ee degmadaasi Sheekh Mahad Khaliif Roble oo isagu kamid ah saraakiisha sarsare ee maamulka Ahlusunna wal Jamaaca ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa toddobaadkan inoo suura gashay inuu khadka telefoonka kula xiriirno isagoo ku sugan gudaha degmada Cabudwaaq waxaana Sheekh Mahad ka wareysanay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda degmada Cabudwaaq iyo xaaladda maamulka Somali Central State oo isagu sheegtay inuu ka dhisan yahay gudaha degmada Cabudwaaq bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in way jirtaa 2 maalmood oo xiriir ah in degmada Cabudwaaq ka maqnayd isgaarsiinta arrintaasna waxay ahayd arrin ku saabsan xagga amniga ama security ku saabsan ayay ahayd waxaa jirtay magaaladan inay ahayd magaalooyinka ugu nabadda badan bartamaha dalka Soomaaliya muddo 3 sanana uu ka soo talinayay maamulka culamaa diinka Ahlusunna wal Jamaaca haddana uu weli gobolada dhexe oo Soomaaliya si buuxda gacanta ugu hayo way ayna tahay gobolada dhexe maamulka Ahlusunna intay gacanta ku hayeen horumarkii ugu ballaarnaa midda uu gaaray iyo nabadgelyadii ugu ballaarnaa oo abad laga dareemo gobolada dhexe oo Soomaaliya sidii ay u dhacday dawladda dhexe ee Soomaaliya intaas bacdigeed waxaa jirtay in deegaanka soo gaaray xildhibaan ka tirsan dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya taas oo dhowr jeer hore ama dawladda ka tirsan bacdigeed asagu uu yimid imaatinkiisa markuu yimid wuxuu bilaabay oo yara qaralaasa deegaanka inuu dhaco kulli arrintaasna waxaan u arkaynaa silsilad isku xirnay oo ka tirsan dawladda ku meel silsilad isku xiran oo ah siyaasadda dawladda ku meel gaarka oo ah in ay
in ay gacanta ka tuuraan ama gacanta ka saaraan amniga gobolada dhexe oo Soomaaliya falillaahi alxamdu arrinkaasi weyn ayaan uga fakarnay waxaanan dareemay dowladda ku meel gaarka ah maslaxad inaysan u haynin dadkan arrinkaasna si wanaagsan ayaan u xakameynay xaaladuna hadda waxay tahay mid caadi ah amnigii iyo kala dambeyntii horumarkii iyo dhaqdhaqaaqina wuxuu hadda u socdaa si wanaagsan wax isbedel ah oo ku saabsan ilaabooyinkii deegaankan hore ugu tilaabsadayna laga dareemahay hadda wax walbana waa caadi wana mahadsantiin waan gartay sheekh maad marka dagaalada aad sheegtay labada maalin ka dhacay degmada Cabudwaaq ka sukow xildhibaanka iyo maamulka Ahlusunna ee iyagu hore halkaas ugu sugnaa waxaanu ka wada ognahay gobolada dhexe gaar ahaan gobolka Galgaduud waxa ka jira maamul goboleedyo sheegtay inay ka armiyaan degmooyin hoostaga goboladaas marka dagaaladaasi lugma ku lahaayeen maamulada iyagu sheeganaya inay ka armiyaan qaybo kamid ah gobolka horta waxaan rabaa inaan hal eray ka socdo maadsan degmada Cabudwaaq laba maalmood dagaal kama jirin xogaa waxaad ku dhufatay carabka in degmada Cabudwaaq laba maalmood dagaal ka jireen wax dagaal la yiraahdo degmada Cabudwaaq ka jiray laba maalmood bad haba yaraatee ma jirto waxaa dhacay xildhibaankaas ciidan oo asagu istaaf u ah iyo ciidanka amniga deegaanku inay si khalada isku dhaceen dhacdadaas waa dhacdo yar oo kooban oo saacado yar dhacday khasaaraheeda oo isu koobnaaday dib dambe aysan wax uga dhicin ma jirto wax la yiraahdo laba maalmood oo dagaal ka jiray waa qodob saaso ee saacado yar ee xildhibaankaas ciidan oo asagu istaaf u ahaa iyo ciidanka amniga deegaanka ayaa si sahlan iskugu dhacay in yar oo koonayayna socotay isku dhacaasu ka bacdina xaaladii caadi ayay ku soo noqotay dhinaca kale maamul goboleedyada ka jira gobolada dhexe oo Soomaaliya sheeganayaan dhihi lahaa maamul goboleedyada sheeganaya inay ka ahmiyaan gobolada dhexe oo Soomaaliya waxaad ogsoon tahay wax maamul ah oo gobolada dhexe Soomaaliya ka jira oo marka laga reebo maamuladii hore uga jiray inaysan jirin Ahlusunna wal Jamaaca waa maamul in badan ka soo talinaya gobolada dhexe Soomaaliya haddana si weyn gacanta ugu haya hal maamul oo kale oo wadanka Ahlusunna ka taliso mid kale darbatin oo galaangala kulana ma jiro waxaan in badan ogsoonahay dad badan ee dadkii dawladda jiray ah ee ay madax madaxtinimo wax la yiraahdo wadadeeda aan haynin inay xaflada ku qabteen wadanka dawladdiisa olo walbana ay shacabka u tuntay aniga ayaa sidaas waxaadna waxaad ila moodaa waxaa ka jira gudaha Soomaaliya urur la yiraahdo ururka wax matarayaasha Soomaaliyeed saldhigiisuna yahay degmada Cabudwaaq ururkaas oo in badan sheegta waxyaalo uusan qaban ama wax uusan teetalkiisa ahayn arrinkaas waxay la moodaa wax matarayaashii dawladda jiray arrimahoodii inay tahay laakiin aysan ahayn dhab ahaantii wax sir rasmi ah qof aqli saliim leh inta ka fakar oo suurayn karo dawladda jira oo say dawladda u joogeen inta xaladu tiirana madaxweynaha la doortay oo deegaan hadal ma ka shaqeynaya inaysan aqli ahayn wada soontahay marka waxaan dhihi lahaa arrinkaas waa shaqadii wax matarayaasha Soomaaliyeed oo gudaha Soomaaliya inta ka gudubtay dawladda u gudubtay waan gartay marka Sheekh Mahad marka laga soo tago jiritaanka maamuladaasi maamul isagu la baxay Somali Central State oo looga dhawaaqay dalka dibadiisa afayeen iyagu sheegtay waxay sheegeen in dagaaladaasi iyagu ay qayb weyn ka qaateen Ahlusunna ay la galeen marka iminkana ay qaybo kamid ah degmada wali ay ku sugan yihiin marka arinta maxaa ka jira Somali Central State maamulka lagu magacaabo annaga ka hadalka aan ka hadlaynaa hukuma cusba maantay ilaa maalinkii la bilaabay hadda inta ka dhaxla waan ka hadalnay ila mana ahan maamulkaas oo aniga awood uu dagaal uga qaado gobolada dhexe oo Soomaaliya inuu leeyahay ila ma ahan laakiin qofku hadduu jecel yahay wax alla wixii dib iyo qas ah meel kasta oo baabuur ku rogmado wuxuu leeyahay aniga ayaa ka dambeeyay si awoodaas uusan lahayn uu sheegto si dhibaatada ummadda haysata uu qayb uga farxo uguna sheegto haddii aysan qorshuhu nooca ahayn Somali Central State ma ahan awood ay dagaal ku qaada inay leedahay dhinaca kale waxaad ogsoon tihiin dadkii diyaasbarada ahaa oo dawladda jiray dad badan oo ka tirsanay markay dibadaha ayaan joogeen
in ay inta xaflada qabsadeen ay qolo walba sheegatay inay tahay maamul iyo madaxweyne arrintaasna waxay qayb ka tahay dhibaatada Soomaaliya ka jirta oo qof kasta uu danaynayo inuu madax noqdo ama xil u qabto sida uu ku qaban lahaana aysan jirinin arrinkaasna waxa weeye waxaa gudaha Soomaaliya ka jira ururo badan oo iskaashaday oo magacooda markii la isku soo gaabiyo ama dalada ay ku midoobeen la yiraahdo ururka wax matarayaasha Soomaaliyeed kuwaas oo had iyo jeer dhaqankoodu yahay 22 sano oo dawladda Soomaaliya ay dhacday oo walba inay sheegato awood aysan lahayn wax kasta oo dhacay ama wax kasta oo dad ay geystaan ayagu ay sheegtaan inay qayb ka yihiin waxaad la moodaa ururada noocaas ah inay dawladda ku faafeen kuwaan hadda joogaan ay ka mid yihiin kuwaas dawladda ku faafay waa tahay dhageystayaal kaasina waxa uu ahaa Sheekh Mahad Khaliif Roble oo kamid ah saraakiisha sarsare ee maamulka culamaa u diinka Ahlus Sunnah wal Jamaa oo toddobaadkan u waramayay barnaamijka Diiradda Radio Kismaayo ولنا دقيستيال برنامج كديرة راديو كسمايو أينا كوجد جنا قيبه سي هراء كلن لوجو مقعد رمضان تمام القبلة كريسان قبلة الدحية دلك الصومالية أيا وحى وكدعي دقمة عدادو قبل كالجدود كلن كاسي أيا وحى سوق وقابسي مامولك حمين يحب هذا وتضوات كان أيا وحى نوصل رجشي إنه أرماسي كوريسنا عثمان محمد علي أو يسقوا على تليا مدحينها مامول قبلة كحمين يحب وما صنعي والسلام يا ربان السياسة الصوماليات ذلك شلون أنت كجوال وحوية شركة سلعة والسعودي ولي توقي إلا شيء توقي بشار سيقول يكون ماضي وحكسوا قيم قال إلا سجال معمول حكسوا قيم كشيء وكذا ذا ومش لو قال لنا وحيات بل أنت كالصوماليات وأي شتابيان إن أي يقول هل كرام يدعون فرقليش شيء يسمشينين iyo sidoo kale in gobolada dhexe bulshada ku nool sida u muddo lahaayeen in laga tashado shirkaas oo si fiican ayaa looga dooday runaantiina markii wuxuu ahaa shirkii ugu horeeyay noociisa oo ka dhacay gobolada ka dhacay oo ahaa ama koonfurta ee bartamaha Soomaaliya ka dhacay oo ahaa waxyaalaha ka soo baxay inta badan shirka waxa kamid ahayd in maamul mideeya gobolada dhexe bulshada ku nool in lagu yagleelo isla markaasna in maamulkaas uu noqdo maamul bulshada ku leh talooyin ku leh oo maaragtay bulshadu iyadoo ay soo dadka meesha imaanaya ay soo doorteen oo ka duwan qaabka hore maamulada Soomaaliya loo magacaabo jiray iyo arrimo kale oo muhiim ah ayaa shirka lagu gaaray waan gartay marka Cismaan gabi ahaan shirkii halkaas miyuu ku ilaaday mise waxa dhiman wajiyo kale oo aad isugu soo laabaneysaan may shirka waxa lagu gaaray qodobada lagu gaaray waxa kamid ah kowda bisha April in la isugu yimaado halkaan marka la taxay magaalada Cadaado in la isugu yimaado taasoo markaa la galay wajigii wax lagu mideelaha oo isla markaasna in maamul kasta inta ka horeysa waqtiga inuu bulshada ugu dhashay iyo beelay ka soo jeedaan inuu ka dhaadhiciyo barnaamijka isla markaasna dad fara badan oo noocyada kala duwan bulshada ah inay ka soo qayb galaan sida odayaasha dhaqanka qoyaanada siyaasiyiinta dhalinyarada haweenka intaas bulshada qaybaheedu inay ka soo galaan macnaha ay ka soo qayb galaan shirka bisha kooda caadada ka dhici doona April hadii la idmo ayaa mataqaanaa lagu gaaray waan gartay marka shirkan oo aad waqtiga dheer ku bixiseen muddo dheerna soo jiitamayay ugu dambeyntiisa maxaad ka filaysaan in ay idinkaga soo baxaan aad wax weyn aan ka filaynaa because waxa weeye dad waqtiga maamulada gobolada Soomaaliya hadda qaabka u dhisan yihiin waxa la socotaa inay isugu jiraan maamulo qabiil ku dhisan macnaha iyo dhamaantoodba maamulada Soomaaliya ka jira waa maamulo qabiil ku dhisan oo geography ku dhisan badan iyo Soomaalnimada ku dhisan meelaha qaarkood aad bay u kala go'ayeen hatta beelihii isku beelaha ayaa magaalooyin yar ama area yar mataqaana ku magacaaban sida darteed waxaan doonaynaa in horta marka hore waxaan samaynaynaa ayaa wax ka Soomaaliya hore wixii uga jiray wax ka duwan inay noqdaan oo ay kamid tahay مثلا dadka gobolka wada degan oo dhan oo qabiil ahayn inay horta ku midoobaan dadka markaasna taadii hirgasho suuragali karta in Soomaaliya mataqaana ay ka baxdo qofka iyo balaayada iyo nimankan ajnabiga oo maalmo lamada ku yeeraya in laga baxo oo halkaas mataqaana wax dadku leeyihiin inay ka soo baxaan
waan gartay marka Cismaan adigu waxa tahay la taliyaha madaxweynaha maamulka Ximin iyo Xeeba dhinaca kale hadii aan su'aal ka weydiiyo shalay waxa garowa ka furmay kulankii wada tashiga ay wajigiisii labaad marka kulankaasi maamulka Ximin iyo Xeeba ma ka qayb qaateen oo mas'uuliyiin matalaya ma ka qayb qaadanayaan kulanku may waa shay kulankaas waan qaadacnay sida uu sheegay kulankaas markaan fiirinay tayadiisa oo iyo qaabka uu socdo iyo ninka maaragtay horboodayo mahiga oo aan u aragnay oo Soomaaliya Soomaalida oo gol maaragtay inuu ay aqara Soomaaliya soo noqdo qaabkiisa uu dhaqmay markaan fiirinay waxayna la gudboonaatay oo maaragtay ay noola muuqatay inaan naga qayb galin marka mar hadii idinka ergooyinka lagu casuumay kulanka aad ka midtiina mahiga ka suko ma jiraan sabab kale oo kulankaas u qaadacdeen may kulanka ujeedada dhan oo weyn waxay tahay mahiga soo shakhsi laakiin mabaadiida oo waxa weeye mabaadiida Soomaaliya ay ku madoobi karto ama ay xuquuq qabsan karto ama qabanimada Soomaaliya ku soo noqon karto kama turjumayo marka inkastoo mahiga uu yahay ergiga asoo waxaas karinayo oo maaragtay mas'uulka ah inkastoo uu yahay in daadiyo siyaasadeed oo maaragtay oo aan Soomaaliya badan aysan ogeyn ayuu u jeedaa marka oo maaragtay u muuqdaa marka waxa weeye taas ayaa ugu weyn sababtoo waxaad ogtahay hadda waxaa loo hadlayaa dastuur baa loo hadlayaa baa la yidhi barnaamijka isaga ah oo shirka hadda garowe marka dastuurka laleeyahay Soomaalida lagu dhaqayaa horta marka hore Soomaalida Soomaali sameeyeen nationaliga soo sameeyay haddeerna looma ogola dadka Soomaaliyeed inta loo bandhigo meel joogaan intii suurtagal ah inay ka soo manaqashadaan wax ka soo saaraan looma ogola marka wax la soo sameeyay oo Soomaalida oo ayadu mataqaana lagu sidkeeyo ayuu u muuqdaa si darteed waa baalka sidaas arrimaha sidaas ayaa mataqaana runtii aan anagu aragnay marka inta mataqaana ihaano Soomaaliya aan u qaadinayn inaan ka gaabsano ayaa maaragtay aan go'aansan laakiin sidaynu wada ognahay kulanka ergooyin fara badan oo lagu casuumay sida dawladda ku meel gaarka qaar ka mid ah maamul goboleedyada maamulka Lusuna iyo wufuud heer caalami ayaa ka qayb galay marka kulligoodna waxay sheegeen in kulanku yahay mid ku haboona waqtigii loogu talagalay inuu iminka dhaco marka idinka oo qura maxaa far taageer idinka soo dhigay waxa weeyaan horta marka hore dadka stakeholderska ka qayb galaya shirka ما وما أذكر بركة راح تذكر هوري وصاير وحكون صوغ هذا وأكتب برلمانكم بالجاركة وحاد أكتب إن يفيدين قدومي هودي شريف حسن أيوة يورجدي أيوة أنا كقيل جلية وأنا متلي ما كحين أقول متلي وأنا اللي فيدي حلك الله يغال مركا يعني بدك ده إن الناس اللي غير بين الواحد صح والله أنا أتكلم بدو نفتي هذا وأكتب ويقاطعين إنك صار نقله يقدر وحالك بارك عالم لك لكن ما ملهان وأكتر أمر بران وهدرتان برلمان متشرو مدحونا متشرو وأحمد تلا وهدي حلقان وإدمروا تسع حكومة تلا متشران مركا يعني يا مركا يا صومالي هو توقع بدلان ومبكتش استوى حدا أنا بدلان سبيشالي غير تهدى كل فرولة وأيها جسته وحد الرسمية وكغير قلي هذا شركة ونصف غير بدنا ما هي اللي تنقل إنك خيرين يا marka yaa joogo Soomaaliya oo hadda meesha joogo waa shay hadda oo ka qayb galay Cismaan wufuud ka socota dawladda ugu horeeyay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iminka xilkiisa lagu muransan yahay way ka qayb galeen saraakiil ka socota Lusuna way ka qayb galeen kuwaas ma waxa leedahay ma matali karaan ummadda Soomaaliyeed horta aniga ma ogi aniga walaas waxa taro inay ka qayb gashay laakiin kullu mar waxaan ogahay Shariif Xasan oo aan ogolayn وأنا معقول هاي أنا هيسن وأنا شرعي أنا هيسن أنا وكاكايب قالي وأنا أيان أوجهي مرك سكة صناعة تيار وحنا مزنا هاي شركة إنه صناعين شركة كلمة بدك الصومالية ده صناعين بعد دي مشروع ده ورك شركة ما هي جو مال ليه هلا تبو وزمانه يريو هنا يجي لفتو مدحونا يورزاي تيجي وشري ملاحين قبطان وصوالي ماشي ربنا هو قبطان ما بوصل هو قبطان ما قرب هو قبطان شر صومالي لا أنت هو قبطان إن الصومالي شو يرى محاد ديرية محا كل في الله يورو فرط الله يورو ليالو سلاسيال مارك مار إذا هكار هذا الصوت قالوا معنا واحد نوع عاصة أنا أقول لك حرية الغادمي سيكون مقاطعة بين عبد الله في شيء ما قفك أقوياء كان صومالي سيكون مقاطعة رنداس oh, 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 oh.
أسلوب قانيو عشوت كاغان مانيكو كوبو أمانا يايه إيسو إيق مارون الوادة فرحي إنه آوضا علمي إيسو إيق مارون الوادة فرحي إنه آوضا علمي شوكاغا افترا منسا إدوكاغا ودوكاغا بسو جيدي إيغا قبو وبحانا بيغالي أمروية جعيلي يكسرو نا 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 لا 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 يا 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 نا 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 لا 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 يا 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 أكايو إكالي أدموي مليون ربيبا كوفيلا يو أركاغا إتياتي أكايو إكالي أدموي مليون ربيبا كوفيلا يو أركاغا إتياتي إلا ديل أنيغا إلا ديل إلا ديل أديغان كوربايا إلا ديل كما إلا ديل أنيغا إلا ديل إلا ديل أديغان كوربايا إلا ديل soomaalida waa quruxda ugu horeeyo waxaa tahay iftiinka ii baxayeen dunida ka ilaashanaye iisoo eeg maruun ilwada quruxeey indhuhu aawada ilmeeye iisoo eeg maruun ilwada quruxeey indhuhu aawada ilmeeye jogaga iftiraaminaysa jogaga isoo jiiday iga qabo ubaxana dhigale amar weye jacayle yogsano na 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 la 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 ya 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 na 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 la 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 ya 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 akayo kale adimoye maluna rabiba kufilayo arakaga yadema akayo kale adimoye maluna rabiba kufilayo arakaga yadema del aniga ila del adigan kurabaya ila del come on ila del aniga ila del adigan kurabaya ila del yes aniga ila del adigan kurabaya ila del come on ila del aniga ila del adigan kurabaya ila del yes aniga ila del adigan kurabaya ila del come on ila del aniga ila del adigan kurabaya ila del yes aniga ila del adigan kurabaya ila del come on ila del aniga ila del adigan kurabaya ila del yes aniga ila del adigan kurabaya ila del come on ila del aniga ila del adigan kurabaya ila del yes aniga ila del adigan kurabaya ila del come on ila del aniga ila del adigan kurabaya ila del yes waa tahay dhegeystayaal heestaasi aad ku macaan waxay qayb ka ahayd barnaamijka diiradda radio Kismaayo aad ka dhageysanaysaan kismaayo24.com welina barnaamijka ayaynu dhegeystayaal ku guda jirnaa xildhibaanada baarlamaanka ku-meel gaarka Soomaaliya ayaa toddobaadkani gacan ka hadal ku dhex maray xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho haddaba xildhibaan Cabdiraxmaan Jimcaal oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaynu toddobaadkan khadka telefoonka kula xiriirnay waxaana uu sharaxaad ka bixinayaa qaabkii ay wax u dhaceen alxamdulillah sallallahu alayhi wa sallam waa maasantahay kulanku wuxuu u dhacay kalfadhigii baarlamaanka oo saakay shalay horey loo ilaamiyey ayaa saakay mudanayaashu marka ugu horeysa markay ay imaanayeen hoolkii shirarkay u soo xaadireen ayaa waxaa baagii isku gadaamay ciidamada booliiska Soomaaliyeed kabacdi arrimihii waa wadahadal iyo maxaan ku yidhahdaa ayaan xalan gaarnay markii dambe waxaan galnay hoolkii baa la galay xildhibaanadu galeen markii kooramkii uu buuxsamay oo intii kooramka loogu talagalay buuxsantay waxaa guddoonkii la wacay ay soo istaageen ayaa waxaa isla markaas soo galay 15 xildhibaan ahaa maxaan ku yidhahdaa oo raggii guddoomiyihii hore aad uga dhawaay ah dabad xildhibaanadu makrofonka lagu hadlay waxaa la yidhi kuraasta aad leedihiin kuraasta wax ku diida waxna ku oggolaada fariista ayaa la yidhi loogu baaqay way fariisteen markii guddoonkii uu soo fariistay ayay istaageen buugay meeshu ku fureen dabadina maxaan ku yidhahdaa waa loo agdhigay waxaa in badan lagu dhiirigeliyay inay arrinkaa yareeyaan waxay diidayaan ama kursiga ku diidaan
waxay gurigeena kursiga ku oggolaadaan arrinkii ugu dambeyntii hadday hawshii ay sidii u sii wadaan xildhibaanadu way adkaysan waayeen mid iyo walba ka saxlinayna dhacdayna kor iyo hoos ka wadataa banaanka la geey albaabkiina waa laga soo xirkiina saasoo ku furmay ujeedadii laga lahayna waa laga gaaray ilaahay baa mahad iskale markaas sidaasay hawsha u bilaabatay ugu dambeyntiina isagu kusoo xirmay ujeedadii laga lahay na waa laga gaaray waan gartay marka xildhibaan cabdiraxmaan sida wararka aynu ku helayno inta uusan kulanka bilaabanba waxaa jiray ciidamo booliis ah oo iyagu isku gadaamay xarunta golaha shacabka marka arrintaas iyaduna maxaa ka jira arrintaas way jirtaa booliis aad u fara badan aaga lagu soo daasay runtii xildhibaanada markay soo xaadireen waxay muujiyeen xilkaasnimo ay muujiyeen adiga xidhiidhay la sameeyeen saraakiisha ugu sarreysa amisom waxay sameeyeen maxaan ku yidhahdaa dhinacyo badan ay xiriir la sameeyeen hataa maxaan ku yidhahdaa dibadda iyo maxaan ku yidhahdaa arrimaha meelo badan ayaa wadahadal ka daadi waxaan soo taadegnay waxaan ku guulaysanay adiga arrinkaas inaan ku guulaysano ina maxaan ku yidhahdaa ka horwareegaan askartii ay hoolka baarlamaanka shirka ay fasaxaan u fasaxaan xildhibaanada si kastaba muddo kastaba loo maray arrinkaas waa lagu guulaystay marka xildhibaanada iyagu qarbushaada ka bilaabay madasha uu kulanka ka soconayay iyagu taageersan siyaasadda guddoonkii hore ee baarlamaanka Shariif Xasan tira ahaan imise ayay gaarayeen idinkuse inta aysan dhibka bilaabin ma idinkala hadleen qorshaha ay meesha ku yimaadeen hadee waa laga hadlay markay yimaadeen tira ahaan waxay ahaayeen 16 xildhibaan ayay ahaayeen أنا ويا أنا رأينا وقت درنا مدونا أيوه ونن معك إلى إلهي سبحانه وتعالى يسوع في كامل أيام عيش ما كان يسعى كذا دوتي تأتي عين ما كان يسوع درنا اللي بنادو رنتي مكروه سعيا لقول حمل ولقول محاكر لقول عمل إليه إن يلاله دان محاكر إلى ظاهرة فريسان قرآن فريسان rag badan oo arrinka diidan inay fadhiyaan waa laga yaabaa marka fariista baarlamaanku waa xur wuxuu ku diidaa wuxuu jecel yahayna kursiga dushiisa wuxuu ku oggolaadaa kursiga dushiisa marka waxay gacan ka hadal gelinina annagana maxaan ku yidhahdaa dadka Soomaaliyeed oo la daawanayo maxaan ku yidhahdaa karaamada baarlamaanka waxaan uga dhaanina hadana ay kaga dhaanina fariiseen badan aan yiri way fariiseen waxa nasiib daro ay dhacday markii guddoonkii yimid ayay soo diisaageen waxay isku gooyeen wixii guddoonka ay isku gooyeen ka baadina buugay fureen ilmaha markii ay soo waayeen ninkii waa saddex qof oo ka banaanka loo tuuray albaabkana laga soo harkay ka baadina shirkii sidii aykaas oo ka bilowday sidii loogu talagalo ku socday anjadii meesha la keenayna waa laga waa noo qabsoomeen marka sidaan la socono buuqii hore ee ka dhacay kulankii hore ee xildhibaanada oo gacanta la iskula tagay waa kii xilka looga qaadayay Shariif Xasan sidaan la socono buuqaasi waxaa kamid ah xildhibaano iyagu magac kule isla markaana la yaqaan marka xildhibaanada maanta iyagu qarbushaada ka bilaabay xarunta golaha shacabka xildhibaanada kamid ah magacyadooda may noo carabaabi kartaa qaarkood walahi dadka waxay ahaayeen hadda odayaashii dadkii hore odayaashii ka baxeen dadka fadhiyay kamid ahaayeen marka dad oo dhalinyaro badan oo maxaan ku yiraahdaa inta badan guddoomiyaha berigii hore oo xildhibaanada maxaan ku yiraahdaa ra'iisul dabo oo maxaan ku yiraahdaa jiray ragga wataan oo ku daray oo maxaan ku yiraahdaa magacyadooda ay aad u buurnay waaye laakiin muwaadin Soomaaliyeed xildhibaan Soomaaliyeed marka waxaan si fiican u garanayaa oo si fiican u aqaanaa in la yiraahdo maxaan ku yiraahdaa ilaahay yarow ninkaas aan ka garanayo inta kale waa in la yiraahdo maalinkiis marka inta kale dad iska dhalinyaro ay u badnaayeen marka buuqa iyo dagaalka halkaasi ka dhacay dabcan gacanta ayaa la iskula tagay maxaa qasara oo ka dhashay xildhibaanada soo gaaray
waxaan arkay waxa ka jira maamulka culamaa diinka Ahlusunnah wal Jamaaca ee gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa ka warbixiyay dagaalo ka dhacay degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud kaasi u dhaxeeyay Ahlusunnah wal Jamaaca iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyadoona wararku qaar ay sheegayaan in dagaalkaasi ay ka qayb qaateen qaar ka mid ah maamul goboleedyada sheegta inay ka arimaan gobolada dhexe gaar ahaan gobolka Galgaduud gaar ahaan maamulka Somali Central State oo isagu sheegtay inuu ka dhisan yahay degmada Caabudwaaq haddaba Sheekh Dubad oo ka mid ah saraakiisha Ahlusunnah wal Jamaaca isla markaana sirgaalka Ahlusunnah wal Jamaaca u qaabilsan howlgallada ciidamada ee gobolka Galgaduud ayaynu toddobaadkan qadka ku wareysanay waxaana Sheekh Dubad uu barnaamijka diirada u sheegay in arintaas ay jirto isla markaana xildhibaankaasi ay ka codsadeen inuu joojiyo balse dagaalku isagu sabab u ahaa waxaana uu Sheekh Dubad waa ka dhacay gobolka magaalada yiraahdo oo kamida waxa weeye gobolada dhexe degmooyinka kamida ee Caabudwaaq adigu nin sheeganaya xildhibaan ayaa wuxuu ku arursaday ciidan ayuu ku arursaday meel ciidankaasi marka iyo ciidanka Ahlusunnah wal Jamaaca oo amaanka sugahaya ayaa meeshaas waxa weeye maleeshiyaanka xabada ku bilaabeen halkaas marka waxa ka dhacay iskoorimaad baa ka dhacay iskoorimaadkaas marka wuxuu keenay khasaaro ayuu keenay labada dhanba gaaray waan gartay marka intaydaana dagaalada la galin xildhibaankaasi isagu marka hore ma kala hadasheen waxyaabaha u yimid degmada waa lagala hadlay degmada wuxuu yimid booqasho ayaan u mid yiri waana ka laabanaya sida ugu dhaqsiya badan markuu yimid ninkaas xildhibaan ayuu sheeganayaa ama dawladda kumeel gaarka kamid ah haddana wuxuu gaday shaqooyin kale iyo inuu arursado ciidan maleeshiyaan inuu arursado ayuu galay oo shaqooyin dheeraada oo ammaanka uu ku khalkhalgelinayo waan gartay inta marka waxa weeye markuu arursaday ciidamadii waxa halkaas ka yimid marka maadaama ammaanka Ahlusunnah wal Jamaaca gobolada dhexe qaabilsanayd ciidanka uu arursaday oo ammaanka inuu ku khalkhaliyo uu diyaar gareeyay iyo ciidanka Ahlusunnah wal Jamaaca ayaa meesha fariimaad baa ka yimid halkaasna adigu waxa weeye kulli iskarimaadkaasna wuxuu keenay dhimasho iyo dhaawac inta uu keenay marka xildhibaanka oo kaliya miya cid aad dagaalka la gasheen mise waxa jira xubno kale oo iyaguna dagaalkaasi ka qayb qaatay asaga iyo ciidan meelada diyaarsaday weeye asaga iyo ciidan meelada diyaarsaday weeye laakiin ma jiraan dad kale ma jiraan waa asaga iyo ciidan meelada diyaarsaday laakiin Sheekh Dubad sida wararku ay nagu soo gaarayaan dagaaladaas waxa ka qayb qaateen
qaar ka mid ah maamulada iyagu sheegtay inay ka dhisayn gobolka Galgaduud arrinta iyadana maxaa ka jira maamulka Galgaduud marka leedahay waxa weeye goboladan dhexe waxa weeye waa isku hal maamul baa ka taliya laba maamul kama wada taliso waxa weeye waa isku hal taliya ka taliya isku hal gudoomiye waa ma laba inay kaliya ma waa isku hal marka waxa weeye maamuladaas marka gobolada dhexe waa hal dalad ma kulmisa marka waxa weeye waa isku mid weeye waxa soo macna maartay ka qayb qaadasho kale oo gaar ma ahana waa isku waxa ka dhaca waxa weeye haday abaad meel kasta ay tahay haday cawd tahay haday Soomaaliya tahay haday tahay Burhaan ka yimaada ka dhaca waxa weeye meel kasta joogan oo ka qayb qaadanayaan laakiin dagaalka waxa si toos ah uga qayb qaatay sida wararka inuu ka helayno dagaalyahano ka tirsan maamul isagu la baxay Somali Central State oo sheegtay inuu ka dhisan yahay degmada Cabudwaaq arrintaas iyaduna maxaa ka jira taas waxa weeye wax jira taas ma ahan taas ma jirto Somali Central State iyo jirta inay deegaanka timid laakiin ayagu hadda ciidamadooda wax iyagana hadda ayaga u diyaarsan oo aanu aragnay ma jiraan waxaad sheegtay in saraakiil ka tirsan Somali Central State ay magaalada yimaadeen kala horna waxaa jiray in saraakiil idinka tirsan ay sheegeen in gabi ahaanba deegaanadiinu aysan imaan karin maamulada iyagu sheegtay inay ka arimayaan gobolka marka maxaa ku soo aadiyay in saraakiishaasi degmadu ay yimaadaan hadda ka hor jirta inaan digniin bixin inaan aysan imaan karin wax maamula oo annaga naga haysan amar iyo waxa weeye dad qof siyaasi iyo waxa weeye siyaasad xambaarsan inaysan imaan karin laakiin ka faa'iideysi baa dhacay macnaha buugii looga faa'iideysanaya dhacay iskorimaadkii maalinka maleesiyaadka diyaarsaday ayay uga faa'iideysteen kuna soo galeen marka maamulka Somali Central State idinka maxaad ka aqoonsantiin Somali Central State annaga maamul ayaga waxa weeye waxaan ka aaminsan horta waxa weeye Somali Central State waxay tahay hadda magaalada soo gashay weyn joogtaa waxay tahay waa u dabagalaynaa waxa weeye go'aan baan ka qaadanaa marka uu dabagalayno marka xildhibaankii degmada Cabudwaaq aad kula dagaasheen iminka isagu iyo maleeshiyaadkii uu watay halkay kaga sugayn gobolka waxa weeye meesha gobolka kula galnay horta Cabudwaaq bay ahayd meel kale ma ahayn Cabudwaaq marka uu jooga xildhibaankii iyo ciidankii meelka gaar ay joogaan ayagana waxa weeye sida ugu dhaqsiyaha badan waxay odayaasha deegaanka iyo ogaalka inta ballan qaadeen waxa weeye inay sida ugu dhaqsiyaha badan ciidanka siyaasada meesha ka saarayaan waan gartay mar haddii degmada Cabudwaaq weli ay ku sugayn ciidamada Ahlus Sunna sidoo kale xildhibaanka isaguna uu sheegayo in qaybo kamid ah gobolka weli ku sugan yahay soo suuragal ma in degmada mar kale ay dagaal ka dhacaan kuwaas oo ku faafa inta badan degmooyinka aad gobolka kaga sugantiin mayko waxa weeye hadda in ay dibdib arrintan u faafso waxa weeye ayahay maqaadiirtii kuma aan darin laakiin waxda inay dibdib arrintan u dhacdo oo dagaalka dib u soo cusbaanaado rajo weyn kama qabno laakiin waxaan rabnaa inay ku dhamaato sida odayaasha iyo bulshada tayada kala duwan ay u qaadanayaan inay asaga ciidankiisa ay ka saaraan meesha ciidanka alsunna anagu hadda gacanta ayaan ku dhignay waxa weeye in anaga xakameynayna oo gacanta ku hayna asaga inuu tilaabo qaado inuu gelin ilaa iyo odayaashu ay gaarayaan halka ugu dambeeya waa tahay dhageystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka diiradda radio Kismaayo ayaynu isla soo gaarnay kulan looga hadlaya ammaanka iyo wax ka qabashada xaaladaha gobolka Gado ee koonfur galbeed ee dalka Soomaaliya ayaa toddobaadkan waxay saraakiil ka tirsan dawladda kumeel gaarka Soomaaliya ku yeesheen degmada Doolow dalka Itoobiya haddaba warbixin arintaasi ku saabsan waxa inoo diyaariyay uriyahna Cabdiqani Xuseen Kuusow shirkan looga hadlayay ammaanka iyo sidoo kale sidii loo taageeri lahaa dawladda kumeel gaarka ee Soomaaliya meel looga soo jeesan lahaa cadawga ummadda Soomaaliyeed ayaa waxa uu soo socday muddo 3 maalin ah waxaana soo qaban qaybay maamulada dawladda kumeel gaarka ee Soomaaliya ee ka jira gobolka Gado iyo kan rasmi ahaan ka furan degmada Doolow Soomaaliya ee gobolka Gado ayaa waxa ka qaybgalayay culimada diinka duqeyda dhaqanka iyo waliba odayaal dhaqameed kala duwan oo ka yimid meelo kala fog oo ka tirsan gobolka Gado waxaana muddo maalin ee la soo dhaafay laga hadlayay arrimaha dhinaca amniga iyo sidoo kale sidii loo ilaalin lahaa
dhinaca dhulka barwaaqoobay islamarkaasina looga ilaalin lahaa in ay gubtaan cawska iyo sidoo kale bay-ada taasoo la sheegay dhowr jeer dadka dhuxusha guba in dhibaatooyin ay ka soo gaareen sidoo kale waxaa arrimihii looga hadlay ka mid ahaa oo la samaaldhigay sidii loo taageeri lahaa si buuxda dowladda kumeelgaarka ee Soomaaliya dadka iyo weliba sidoo kale shacabku ay wada shaqayn lahaayeen waxaana inta badan sidoo kale lagaga hadlayay sida dhinaca siyaasadda si buuxda ay meel u soo saar lahaayeen duqeyda dhaqanka islamarkaasina loo taageeri lahaa xukuumadda kumeelgaarka ee Soomaaliya waxaa sidoo kale qodobada laga soo hadlay ka mid ahaa sida ubadka Soomaaliyeed ee ay lansadeen shabaabku gacan loogu soo dhigi lahaa sidoo kale looga soo saari lahaa arrimaha gubi ahaanba noqday kuwa saddexdii maalin ugu dambeysay weyn ay uga doodeen duqeyda dhaqanka ee maamulada dowladda kumeelgaarka ee Soomaaliya oo ay kulankan martigeliyay maanta ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo kulankaasi oo asagoo noqday kulankii ugu horreeyay ee si buuxda markaa loogu taageero xukuumadda kumeelgaarka ee Soomaaliya si wadajirana maamulada dowladda kumeelgaarka ee Soomaaliya iyo duqeyda dhaqanku ay u gartaan inay danta ugu jirto in dadku ay muujiyaan qarannimo islamarkaasina laga gudbo dhibaatooyinka dabada dheer ee la soo maray kulanka ayaa duqeyda dhaqanka waxa ay isku wadaarsanayeen fikrado kala duwan ayagoona inta badan lagaga hadlayay marin habaabinta loo geysanayo ubadka Soomaaliya taasoo ay sheegeen in dhibaatooyin ay ugu filan yihiin waxaana ay si buuxda isula qireen in dhibaatooyin fara badan ay ka soo gaareen in la marin habaabiyo carruurtooda ayagoona sheegay in danta ay ugu jirto ummadda Soomaaliyeed inay hesho dowlad cadaalad ah oo ay markaasi ku biiraan ayagoona sheegay in xilligani ay u muuqato inay ka tashtaan ayahooda taasoo ay ugu horreyso inay ilaashadaan nabadgelyadooda taageerana dowladda kumeelgaarka ee Soomaaliya ilaashadaan bay-adooda iyo dhirta taasoo ay sheegeen inay dani ugu jirto waydii ugu dambeeyayba waxaa inta badan ay xukuumadda kumeelgaarka ee Soomaaliya gaar ahaan maamulada deegaanada koonfureed ay ku howlanaayeen wada tashiyo ay la lahaayeen duqeyda dhaqameedyada ku dhaqan deegaankan taasoo lagaga hadlayay sidii meel qura ay isu raaci lahaayeen islamarkaasina ay madaxda u saari lahaayeen shakiga ku jira taas oo inta badan ay sheegeen inay xilligan loo baahan yahay in meel la isku raaco duqeyda dhaqameedka deegaanka ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in ay ayagu jiraan dad fara badan oo si macno darro loo laayay taasoo ay ku eedeeyeen in shabaabku ay ka dambeeyeen ayagoo sheegay xilligan inaysan taas u dul qaadanaynin waa tahay dhegeystayaal gabi ahaanba toddobaadkan intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda radio Kismaayo oo aad ka dhegeysanayseen kismaayo24.com barnaamijka waxaa idiin soo saaray islamarkaana halkaan idinkala socodsiinayay anigoo Cumar Saciid Cabdiraxmaan Lakimaan waxaana si toos ah idinkaga imaanayay stuudiyaha radio Kismaayo ee magaalada Boosaaso idinkoona ka dhegeysanayay barta internetka ee kismaayo24.com intaynu barnaamijkan mid lamid ah toddobaadka dambe aynu ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mid ah kaalimaha suugaanta waxaad ka heshaa
inodor Kismaayo 24 waxaad ka heshaa Radio Kismaayo allo inodor Kismaayo 24 waa tahay dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka diiradda Radio Kismaayo haddaba barnaamijkeenan maanta waxaan marti noogu ah gudoomiyaha guud ee ururka SDSI mudane Cabdiqani Sheekh Cali Diini Cabdiqani ku soo dhawow barnaamijka diiradda ee Radio Kismaayo waa mahadsantahay Cabdikaafi waa dhawa Cabdiqani marka koobaad aniga oo ka faa'iideysanay barnaamijkan bal wax yar waxaad igu soo koobtaa taariikh nololeedkaagii qadar yar oo daqiiqada ah adoo noo dul maraysid dabcan ku ognaanan wax kasta aanan soo koobi karin taariikh nololeedkaaga laakiin se bal wax yar oo dul mara bismillaahir rahmaanir rahiim taariikhda in badan hadda dadku waa qariyaan oo daaha iyo si waa loo qarqariyaa laakiin waxaan kusoo koobaya adigu guud ahaan waxaan ku dhashay gobolka Galgaduud magaalada Caawdaaq waxbarashadeydii hoose dhexe sare iyo heer jaamacadeed intaba waxaan kusoo qaatay magaalada Muqdisho kuliyadii dhaqaalaha baan ka qalin jibiyay intii ka dambeysana waxaan ku biiray ganacsi oo maadaama aan maaragtay shaqadaydu ay ahayd ama waxbarashadeedu ay ahayd ganacsi wixii ka dambeeyay ganacsi baan ku jiray hadda oo aan dalkan Mareykanka ku noolahayna waxa weeye ganacsi baan ku jiraa Cabdiqani aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dabcan ururkan hadda aad gudoomiyaha u tahay SDSI waxa uu dhisan yahay muddo 3 sano ah wuxuuna marayaa gudoomiyihii labaad oo adiga aad ku guuleysatay oo hadda hoggaanka u haysid ururka markii ogaanshahaaga intii ka horeysay adiga xilka oo aadan qabanin waxa uu soo qabtay iyo hadda inta adiga xilka ay soo day muddo gaabana waxa uu soo qabtayba bismillaahir rahmaanir rahiim ururkan sidaad la socotaanba waxa uu hadda sanadkiisii 3aad baa u dhamaanaya ama 2 sano iyo barbaaba la oran karaa xaqiiqdii wax hadda la taaban karo oo aan dhihi karno shaqadaas faraha badan buu qabtay ma jirto muddadaas 2 sano aan anigu xubin ka tirsan ururka oo dadkii ururka lagu aasaasay baan ahaa laakiin marka la fiiriyo waxa noo yaalay hawsha noo taalay oo hor taalay iyo waxa aan qabanay marka la isbarbar dhigo miisaan la saaro waxa la dhihi karaa waa 100% ama wax la mida sababta keentayna waxa weeye ugu horeyn dadkii iska lahaa ururkan oo la rabay inay garab istaagaan gacanna siiyaan oo xoogoodii uu ka maqan yahay meesha iyo taakulayntoodii iyo iyadoo oo ay aad u yarayd runtii tasiilaadka aanu helaynay ka urur ahaan sababta waxa weeye ururkanu waxa weeye ma ahan urur dawli ah ma ahan NGO profit ah waa non-profit organization weeye ama maaragtay ururada aan maaragtay ku dhisnayn profitka ama faa'iido doonka ku dhisan ma ahan waa urur beeshaanu ay leedahay wuxuu marka ku taagan yahay oo garab iyo gacanba u ah waa jeebka beesha weeye jeebkii beeshana waxa aanu ka helnay oo naga soo gaaray oo aanu horumar ku suubina ma aysan jirin sidaas daraadeed waxaa la oran karaa wax badan oo la taaban karo maana qaban laakiin saas oo ay tahay haddana nagama marnayn dadaal oo sidaad la socotaan waxyaabo fara badan oo aad ururkan loogu xasuusan karo ayaa jira 2 sano iyo barkii la soo dhaafay kuwaas haddaan wax yar ka xuso waxaa ka mid ah magaalada aad maqasheen Qudus la yiraahdo oo degmada ah oo laga aasaasay duleedka Kismaayo waa degmo dhan weeye oo hadda beeshaanu ay degto waxa iska lahaa aasaasitaankiisii iyo dhisida degmadaasba waxa iska lahaa ururkan gacan weyn ka geystay waxa kamid ah waxa qabadkiisa lagu xasuusto garab iyo gacan weyn oo uu ka geystay arday wax ka barata dalka Suudaan oo runtii deegaanka ay ku nool yihiin building weyn ama dhismo weyn bay ku nool yihiin ilaa iyo 50 arday oo ururku ka faala qaaday muddo sanad ah inuu bixiyo qarashkii ku baxayay ama kiradii gurigaasi ku baxaysay waxa kale oo kamid ah waxyaabaha lagu xasuusto ururkan dhacdadii foosha xumeyd oo ka dhici jirtay tuulada Ceeldibir oo dad badan ay ku leedeen ururku aad buu ugu istaagay runtii dadkii meeshaas ku leedayna samirsiin fara badan iyo wixii awoodiisa ah uma uusan kala harin markii ay taas iyada laga gudbayna waxaanu u gudubnay in aanu dhibtii meesha ka dhacday si aysan u dhicinin in aanu dadaal fara badan aan ka geysano oo aan dacwad u furnay
kilinka shanaad aan dacwad ka furnay dacwadaas odayaal baanu ka kaxaynay magaalada caawudwaaq ilaa iyo dhowr iyo 10 oday ah 6 iyo 10 oday ah muddan waxaan ku haynay magaalada Jigjiga dacwooyinkii aanu u gudbinayna runtii sidii aanu rabnay aad waxba ugagama qabsoomin laakiin haddana waa laga garaabay dhibtii dhacday wax yar oo aan badnayn oo runtii de nidaamka u yaala dawladda federaalka Ethiopia oo magaha lagu bixiyana wayna siiyeen oo wax hadda xoog saasa aan lahayna ka bacdina odayaashii markii in badan aan meeshaas wax badan nooga qabsoomi waayeen waxaan u gudubnay Addis Ababa xarunta maaragtay dawladda Ethiopia oo dacwadeennii aan u sii gudubnay waxaan halkaa ka furnay sidii aanu degmooyin iyo aan ugaga heli lahayn kuma aanan guulaysan in badan laakiin ugu dambeyntii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu gacanteena soo geliyey hal degmo oo dhankan maaragtay zoonkan liibaan aanu ka helnay oo beeshu ay degto halkaa degmaa nooga suurto galay inaanu ka helno dadaalkii isaga ahay oo aan ilaa iyo muddadaas aanu qabanay runtii waa waxyaabaha lagu xasuusto waxaan kaleeto aanan iloobaynin runtii dadaalka aadka u faraha badan oo loo galay sidii loo qodi lahaa ceelka neef ku ceshe oo ururkaanu uu saldhigana u ahaa nooma uusan qabsoomin laakiin dhaqaalihii loogu talagalay waxaan oran karaa 50% gacantay ku jirtaa haddii ilaahay idmana waqti dhow aanu bilaabi doonaa waxyaabahaas lagu xasuustaa ururka gudoomiye waxaa taabatay waxyaalo fara badan oo ururka lagu xasuusto runtiin adigu waxaa tahay ka sokow xubintii aad ka ahayd laakiin hadda hogaanka ayaad qabato adaa gudoomiye u ah maxay tahay waxyaalaha ugu horeeya oo hadda ajandahaaga maadaama aad gudoomiye cusub aad tahay oo ururka hogaanka u qabtay ma siyaasadii horeto iyo qaabkii ururka u shaqeynayay baad ku wadi doontaa mise waxaad leedahay anigu maya weji ka duwan kii horeeto baanu ku wadi doonaa bismillahi raxmaan raxiim waxa weeye horta maamulkii horeeto waan u mahad celinayaa dadaal fara badanna waa suubiyey wax badanna waa maaragtay kasoo ka dhacay baan leeyahay anaana kamid ahay oo eedahaas dabcan waxba maamulkao dhan ay ku lahaayeen hogaanbaha jiro laakiin waan filayaa inaanu weji ka duwan la nimaano sababta waxa weeye tabashooyin fara badan baa jiray xaqiiqatan oo ururka markii la dhisay ka yimid bacdigeeda tabashooyinkaas waxaan doonaynaa inaanu ka saarno meeshii gogol baan u fidiyey dhammaan cid kasta iyo group kasta oo wax tabanaysay inay tabashooyinkoodii iyo wixii lamidkaa meesha aan ka saaro runtii waxay kamid tahay taa iyada ah wadooyinka aan rabo inaan wax ku hago ama ururkan aan ku hogaamiyey kamid tahay sidaasoo kaleeto waxaan rabaa inaan isku xirkii qurbaha aan aad iyo aad dadaal fara badan iyo xoog fara badan u geliyo anigoo u maraya inaan u safro meel kasta oo qurbaha ah oo dadka ama beeshaan ay ku nooshahay sidii aan isku xir la taaban karo aan u suubin lahayn sidaasoo kaleeto waxaan u gudbi doonaa gudihii iyo deegaamadii awla safar baan ku tegay gobolka galgaduud laakiin haddana insha allahu tacaala waxaan ku tegi doonaa gobolada jubbooyinka laysku yiraahdo oo geda iyo jubbooyinkaba ah jubbada hoose labadaba waan tegi doonaa dhowaan haddii ilaahay idmo marka runtii waxay noqon doonaan arrimahaasu tallaabooyinka cusub oo aan qaadi doono haddii ilaahay yiraahdo cabdiqani waad mahadsan tahay sidoo kaleto ururka berigii horeeto eedihii laga sheegan jiray waxaa kamid ahayd in siyaasiyiinta dabcan dee beesha aad matalaysaan ururkaasi ka tirsanayna wada shaqeyn lalahayn ururkaaga ama hadda hogaankan cusub ma soo dhaweynaysaa wax alla wixii siyaasiyiin oo gudaha jooga ama dibadda jooga ee wax raba inay la qabtaan ururka ama la shaqeeyaan nacam baan leeyahay ama haa su-aashaas iyada ah ururkaana horta ma ahan urur sidiisaba xildoon ah ma ahan inaan arrinkaa caddeeyo way 3 qodob oo muhiim ay ahayd ururkan aasaaskiisii horeeto waxay ahayd dadka diasparaha ama qurbaha jooga inuu isku xiro oo uu nidaamiyo waxay ahayd meelaha maamuladu ay ka jiraan in garab la siiyo oo gacan la siiyo meelihii aysan maamul aysan ka jirinna maamul loo yeelo iyo qodobka saddexaad oo ah in horumarin deegaamadii lagu suubiyo oo la maalgeliyo iyadoo loo adeegsanayo dadka u dhashay deegaamadii in la abaabulo si ay dhaqaale u geliyaan su-aashaadaas marka dadka siyaasiyiinta ah waa hawsha ugu weyn oo weliba hadda aan rabo gacan weyn inaan ka geysto xiriir fara badan baan la leeyahay lana suubiyey maamulka ahlu sunna xiriir fiican baan leenahay wada shaqayn fiican baa naga dhaxaysa maamuladan kaleeto oo hadda howlgallada ku jira oo dhankan jubbooyinka ku jira xiriir baan leenahay
oo maaragtay sidii bal haddii arrimahaas jubbooyinka iyo dhibahaas ka jira iyo gobolka gadaba ay dhammaadaan sidii wada shaqayn fiican ay noo dhex mari lahayd marka cid kasta oo siyaasadda beeshaan ama dan kale ama iyadu danaynaysa ama haddaba ku dhex jirta waan ku khasbannahay inaanu lana shaqayno soona dhaweyno wixii danta iyo maslaxadda nagala dhaxaysana aan si wada jira u abaarno haddii ilaahay idmo gudoomiye haddaan su-aal kaleetaan ku weydiiyo dhowaan waxa aad tagtay sidaa hore uga shaqeymisayba gobolka galgaduud oo kamid ah gobolka ay beeshu qayb ka leedahay meeshaasi waxaa ka jirtay nabad balse hadda waxaa ka jirta colaad sidoo kaletana xala waxaa jirtay shir aad qabatay oo aad baaq kasoo jeedinayseen odayaashaas ugu yeertay maxay tahay ururka ahaan arrinta ku wajahan gobolka galgaduud colaadaha ka taagan arrintaas waa ka hadalnay baaqna horey waan u diray kulli websiteyadoo dhan aan kusoo qoray baaqaan dirnay wuxuu ahaa baaq nabadgelyo ah annagu 100% waxa aan taageersannahay gacanna aan siinaynaa nabadgelyadii deegaanka ka jirtay waxa ugu horeeya oo priority-geena ah ama maaragtay muhiimadda ugu weyn aan saaraynana waa nabadgelyada wey waa in nabadgelyada la ilaaliyo gorgortanna aysan gelinin waxaan leenahay cid kasta ma qabno annagu aragtida ah in qofna deegaankiisa loo diido ama qofna maaragtay la yidhaahdo deegaanka ma imaan karo laakiin xaqiiqda runtaa oo jirta waxa weeye meeshii haddii maamul ka jiro in la ixtiraamo weeye maamulka ka jira laguna ixtiraamo ka maamul ahaan iyagana waxaan ka codsanaynaa maamulku inay u furfurnaadaan dadka deegaanka u dhashay sababto qof walba xaq buu leeyahay deegaanka uu ku leeyahay wixii uu kusoo kordhinayo deegaankana inay soo dhaweeyaan waan ka codsanay markii aan tagnay meeshana runtii arrintaa iyadaa maamulka waa kala hadalnay waagaasuna waxay ahayd waqtiyadii maaragtay lalahaa central state baa loo diiday deegaanka loo diiday ma ahayn inaan anagu lahayn ciddaasaan nahay ama ciddaasaan la jirnaa manan la jirno cidna oo cidna saboorti uma nihin laakiin waxa ugu weyn oo muhiimadda aan saarayna waxa weeye kow nabadgelyada in la ilaaliyo laguna ixtiraamo dadka nabadgelyada gacanta ku haya maamulka deegaankana waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo deegaanka u dhalatay in aan lagu dhibaataynin deegaanka laguna soo dhaweeyo ciddii waxqabad deegaanka gelinaysa ama horumar deegaanka gelinaysana ay soo dhaweeyaan baan ka codsanaynaa waagii aan tagnina waan kala hadalnay wayna naga aqbaleen waxaan sidaas oo kale ka codsannay si ay u yaraato xasarada ama tuhunku uu u yaraado maamulka laftigiisu dadkiisi inuu garbaha u qabsado dadka shacabka garbaha qabsado dadka aqoon-yahanka garbaha qabsado odayaasha dhaqanka garbaha qabsado sababtu waxa weeye wada jirka ayaa wax lagu noqon karaa qofna keligii wax ma noqon karo haddii aan la isgarab istaagin oo aan maaragtay nabadii laga wada shaqayna qolo keliya ama group kooniya nabadda keligii kama shaqayn karo sidaas daraaddeed cid walba waxaan ka codsanaynaa maamulkana in la ixtiraamo deegaanka ka jiray nabadii deegaanka ka jirtayna lagu soo celiyo waa mahadsantahay gudoomiye aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waa mahadsantahay